Raggaani hubeysan ayaa maanta gurigiisa ku dhex dilay ganacsade lagu magacaabi jiray bidaarkaasi oo degnaa xaafadda horumar ee magaalada Gaalkacyo, gaar ahaan halka loo yaqaano Buule Bacley, waxaana la sheegayaa in dilkiisa uu salka ku hayo arrimo la xiriira aanooyin qabiil. Kooxaha dilka geystay ayaa la sheegayaa in isla markiiba goobta ay ka baxsadeen, waxaana dadka deegaanka soo wajahday cabsi aad u xooggan maadaama aysan filaynin dilkaasi. Dilka kadib ayaa goobta waxaa gaaray ciidamo ka tirsan laamaha ammaanka kuwaasoo bilaabay howlgallo ay ku baadigoobayaan kooxihii ka dambeeyay dilkaasi, inkastoo aysan ku guuleysan inay gacanta ay ku soo dhigaan. Ninka la dilay oo deegaan ahaan ka soo jeeda deegaanka Tawfiiq ee gobolka Mudug ayaa la tilmaamayaa in wiil uu dhalay uu horay u dilay nin ka soo jeeda koonfurta magaalada Gaalkacyo oo lagu magacaabi jiray Tuur Cadde, waxaana isla maleeshiyaadkaasi hubeysan ay maanta dileen isagoo ku sugnaa gurigiisa. Deegaanada miyiga gobolka Mudug ayaa waxaa ku soo laalaabtay dilalka ku saleysan aanooyin qabiil kuwaasoo u dhexeeya maleeshiyaad ka kala soo jeeda maamulada Galmudug iyo Puntland.